salaamullaahi calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si walba muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkan oo aan ku soo qaadan doonno wararkii ugu dambeeyey daaqadda kala iibsiga ciyaartoyda iyo waxa dhici doona maalinteedii ugu dambaysay waxaanan ka marnaan doonin faaqidaad guud oo aan ku samayn doonno wacdarihii ay dhigtay Man City guushii lama iloobaanka ahayd ee Liverpool ilaa iyo Arsenal waxa laga filan karaba xilli ciyaareedkan balse marka hore ha iloobin inaad like saarto muuqaalkan haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhowow qalbi furan mahadsanid wargaysyada ugu waaweyn khabiirada wax falanqeeya iyo mucaashaqiinta kubadda cagta waxay ka siman yihiin hadalhaynta xiddiga aragtida ay kala dhaxaysaba shabaqa ee Erling Haaland kaasoo si naxariis dara ah ugu burburiyey difaacyadii iyo goolhayihii kooxda Nottingham gagada caanka ah ee Etihad ciyaar qayb ka noqonaysay isbuucii shanaad ee horyaalada Premier League ka gadaal markii 38 daqiiqo ee ugu horeysay ciyaarta uu kaga dhaliyay 3 gool iyagana waxaba amakaag iyo fajac ku noqday sida tilaaba dheerahan uu 2 tilaaka ugu dhigayay liinayadoodii intii ay la fajacsanayeen waxa la arkay Haaland oo goolkoodii ka dhigay sida doonto u booqo libaax ayaa soo galay horyaalada marka loo fiiriyana sida ay ku socdaan tixanaha goolasha ee Haaland waxaba soo dhamaatay in gorgorta laga galo cidda noqon doonta guguulaysiga kabta dahabka ee horyaalka Ingiriiska ileen waxaa yimid wiil isku darsaday awood iyo hiba gool lalin Haaland ayaana sida ku noqday ciyaartooygii ugu horeeyay ee taariikhda Premier League ee dhaliya 9 gool 5 kulan ee ugu horeysay mana ahayn diiwaan horay loogu xariiqay ciyaartooydii soo maray horyaalka ugu shacbiyada badan 5 horyaal ee laga ciyaaro qaaradda Yurub Haaland ayaana soo afjaray buuqii iyo hadalhayntii hareeyay hibadiisa gool lalin isagoona muujiyay in horyaalka Premier League uusan waxbaba dheerayn midka laga ciyaaro dalka Jarmalka boqoradii goolasha ayaana la dhici karaa waqti xaadirkan waa ay ku kulmeen Man City oo la'aan gool laliye u waysay xilli ciyaareedkii hore ku guulaysiga koobab badan oo ay u qalmaysay ileen Julian Alvarez ayaa raacsaday 2 kale halka gool kalena uu ka yimid Joe Gonzalo sida ayaana lagu soo xiray lixleydii gool ee lagu shishay kooxda Nottingham Forest oo la dhici karaba waa ay ku jahwareertay gagada caanka ah ee Etihad Stadium koox kasta oo ka dhisay Yurub waad ka shaki kartaa waqti xaadirka laakiin City waa ay ka tilaabsatay waxaasoo dhan iyadoo loo siyaalaynayo markan iyo wixii ka dambeeya inay kulmi doonto koobab badan oo laga ciyaaro qaaradda Yurub kooxda kale ee wacdaraha dhigtay waa Liverpool oo gagadeeda Anfield iyadana ku samaysay dib u soo laabasho aan lagu arkin baryahan halka oo ay kula ciyaartay Newcastle oo isku badashay koox dhibaato waliba naadigii ka soo kacay timay qalcadda East Jamesburg iyada ayaa furtay bilowga goolka koobaad ee kulankan waxaana kaga naxsaday taageerayaasha Liverpool wiilka ay u jibiyeen rikoorkooda suuqa ee Isaac marka iyo wixii ka dambeeyayna xaaladda taageerayaasha waxay noqotay mid iska allow sahal ah oo aanan lahayn salfadhiya balse goolkii yimid qaybtii koobaad wadnaqabadkana ku noqday dadka aadka ula dhacsan duriyada gobolka Merseyside waxaba soo celiyay Roberto Firmino kolob oo maankiisa ku hayay in hal dhibcood aysan ka qoslin karin taageerayaasha Liverpool ayaana awooday in halkii dhibcood uu ku galo qamaar wuxuuna ciyaarta ka tuuray Alexander-Arnold isagoo ku soo piiriyay wiilka dhaafay ee Fabio Carvalho ka uu ka yimid goolkii go'aamiyay 3 dhibcood oo ay xaqiijisatay kooxdii martida loogu ahaa gobolka Merseyside balse kooxda bar loo celiya la yahay waa Arsenal oo cududeedii dib ula soo laabatay iyada oo ay ka maqan yihiin ciyaartooy waaweyn sida Shevchenko tiirashii qadka dhexe oo ay ku tiirsanayd Partey iyo Mohamed Elneny oo lagu daray Nelson ayayna awood u yeelatay in 2-1 ay kaga badiso Aston Villa waxaana haatan laqlaqanaya kursiga macallinimo ee halyaygii Liverpool Steven Gerrard
kadib markii kooxdiisa ay noqotayba guuldara u joog. waxaana labada gool ee Arsenal ay ka kala yimideen Gabriel Jesus oo noqday tan iyo markii uu yimid Emirates sun ka ilmaysiisa kooxaha Ingiriiska, iyo waliba Gabriel Martinelli oo isna isku bedelay xariif weyn aadna ay ula dhacsan yihiin taageerayaasha kooxda ka dhisan waqooyiga London. ciyaarta dhaaftay ee ka dhacdayna Emirates Stadium, Arsenal waxay ku xaqiiqsatay guul 2 gool iyo gool ah, walina waxay noqonaysaa madaxda u talinaysa kala saraynta horyaalka Ingiriiska. markan iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp wuxuu xaqiijiyay in il capitano Jordan Henderson dhaawac muruqa ah uu ka soo gaaray intii ay socotay ciyaartii 2-1 ay kaga badiyeen Newcastle United. Henderson ayaa dhaawac uu soo gaaray daqiiqadii 71aad ee ciyaarta, waxaana lagu bedelay James Milner oo qayb ka noqday isbedelkii 3 geesoodka guusha weyna u horseeday Liverpool oo joogta gobolka Merseyside-ka. AC Milan dhankeedana waxaa lagu soo waramayaa inay ku garaacayso Man United saxiixa difaaca midige kooxda Barcelona Sergio Dest. 21 jirkan ka soo jeeda Mareykanka ayaana macallin Xavi Hernandez si cad wuxuu ugu sheegay inuusan qayb ka ahayn qorshihiisa xilli ciyaareedkan, waana sababta loo filayo inuu ku biiro koox cusub ka hor inta uusan xirmin suuqa xagaagan. Arsenal dhankeedana waxay wararka warinayaan in United ay kula tartami doonto saxiixa Marco Asensio oo ka tirsan Real Madrid, ka oo horay macallin Carlo Ancelotti uu u cadeeyay inuu ka tagi doono gagada caanka ah ee Santiago Bernabeu ka hor inta uusan xirmin suuqan dabayaaqada maraya, isla markaana ay ka heereen saacadaha kooxda ka dhisan waqooyiga London ayaana laacibka reer Spain bacsanaysay 2 sannadood ee ugu dambeysay, balse hadda ayay haysataa fursad xul iyo xaraga leh, isla markaana ay ku heli karto Marco Asensio ka oo guulo waaweyn ku gaaray intii uu joogay kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid. waalida maalinta ugu dambaysa ee suuqa wali waa socota, iyadoo koox kastana ay waqti ku bixinayso sidii ay ku heli lahayd laacib kasta oo ay isleedahay kooxdada waa uu ku soo kordhi karaa wax badan. wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo gudaha Spainna waxay sheegayaan in kooxda Inter Milan ay amaah ku qaadanayso gaamurkii weyna ee difaaca bidix ugu ciyaari jiray Barcelona Jordi Alba, ka oo dhan kastaba isagana uu soo dhammaaday rajo kasta uu ka lahaa kasi mid ahaanshaha kooxda ka dhisan magaala madaxda gobolka Catalonia ee Barcelona. maalinta ugu dambaysa suuqa sidoo kale waxaa dhici kara in Saha uu ku biiro 2 kooxood midkood, waana Chelsea iyo Arsenal oo aad ugu dagaalamaya saxiixa 29 jirkan, ka oo Palace ku qaadanaya waqti xaadirkan waqti wacan oo wanaagsan. Liverpool iyadana weli ma soo dhamaan qorshihii ay ku doonaysay laacib qad dhexe, waxaana bartilmaameed u noqonaya Douglas Luiz, ka oo waqti xaadirkan ay ka gudbisay dalab gaaraya 20 milyan, waana ay dhici kartaa inay ku soo xirto suuqa xagaagan. sidoo kale Liverpool, Arsenal iyo Newcastle waxay kula dagaalami doontaa laacibka baxsadka ka ah kooxda Leicester City ee Yuri Tielemans. hase yeeshee heshiiska ugu weyn ee la filayo inuu dhaco maalinta ugu dambaysa ee suuqa waa midka Neymar loo siyaalaynayo inuu ku soo aado Chelsea. ilaan xogweynayaashii galbeedka London waxaana looga maarmaynin inay helaan weerarayaan aad u wanaagsan. Neymar oo yimaadana fagarayaashii Premier League war waa jira. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay barnaamijkan ilaa iyo dhammaadkiisa. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.